way jireen xitaa hadda adoo ii ogeyn waxyaabo fara badan oo adi dabeecadaada ah oo aan dhahniyo wallaahi xilligaan la joogay kasoo sheegaya way saxan yihiin oo aan kugu arki way jireen waxaa kamid ah fikradahaas hadda ka hore waxaa la weydiiyey adigniyo maxaad ku nacab tahay in oo amaba youtuber fara badan garabkooda lagaaga arki waayo ama la shaqeyn waayo waxaan ku jawaabtay nacayb iga maahan ani laakiin waxaan jeclahay in ani aan iswado ama waxaan jeclahay fikradahayga inaan wakaas camal ku السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان خيرتا شرفت له ملك سو جوجتان سو دوادا waxaan doonayna halkan insha Allah maanta in aan ku falanqeyno heshiis taariikhi ah oo dhaxmaray laba youtuber oo caan ah in mudane ka dhaxay khilaaf intaas oo sanad ugu jirsan heshiiskaasi taariikhiga waxa mataqaanaa isha ku hayay Nuux Caaqil oo isaga laftiisa labada mid kamid ah heshiis gooni iyo makor la aha haddana aad uga xumaad markay markaas ay heshiyeen ma garan karo soo uga xumaaday iyo waxa ku kalifay wato Nuux makor soo dhaw waa dhawahay Cukaashow mar kale asxaabta soo dhawaadaan leeyahay inkastoo aan ragga heshiiskooda aan ka xumaanin Cukaash afkiisa niidii gelin ma laakiin waxaan arkay adigoo inta badan aad mataqaanaa dirsle u taageersan laakiin ka soo horjeeda sikay ما درسال دي وانيل تاجر كرو صح سكين وانيل تاجر كرو هذا هو بس يشيسكو ده كم حمان صح رجنا وكيو دشيا انت استغلال هيشي استغلال هيشيا يشيسك ندت كقار هدوم بيركين او إنه صوب بحي إنه صوب بحي مثلا مقال إسرائيل صدوين بس يشيسكني بالكهر يوبا هوا اوكي انت بدل لما فهم سنين صح انت برها بلشده انت بدل كل واحد جرت ايغا waxay kala socdeen Instagram raggan waxay ahaayeen raggeen ravel wax la isla dhiila oo cadow isku ah صح cadow oo si cadow dagaal ma ahayn afka dhanka YouTube ka yay kaayeen صح ku dhawaad hadda 3 sano oo YouTube ay ku jiraan 4 sano isdagaalayeen haye haddii aan dib ugu laawano sanadihii aadka isku dagaalayay waxa la isku reebtay mala horta 2019 xitaa ilkaha ma dhaxdaa wax walbo dawada xitaa sheeg meel walba la iska caayay waxaan waa qaybta views ana ka fiis badan ka subscribe badan iyagu xogaa taas waa iska gudbay taas waa maxay tagtay in qof dirsi ma lahayn xitaa wax laga sheego mar xitaa ilkaha soo cadeysay mid la dhahay arkay okay fahantay laakiin arrintaas hadda waa laga soo gudbay وهذا رجي اللي حساسي حالات كلا مريان يا حسيس نقول اللي أدق بيشين وادتك وحي ليا بيهن معقول ما هي تاجين لكن هيك حتى مركا كاميرا ده يفرنين قصدك قصدك كلام دلوقتي كاميرا ده حشونة سيد هاي واي لما ده نسافر إنما أنت كاميرا ده حشونة والله ده إنه يعني 3 سنة ونسألك oo ragga baraha bulshada daawado dadka daawado ay naga aaminsanayeen in macnaha rag oo xasiin isku oo qodob isku oo maan soo wada fariistay صح laakiin mid baan ku sheegay sikay wuxuu yiri aniga horumarkayga صح waxa ka dambeeyay uu yiri dirsay maanta ma ku hadlay adiga hadaad ahaan buu yiri adiga meel ma gaari lahayn صح dhanka kale marka loo dhigo حل وقت حالك اللي جو ما دام هيسيين دي أفكيني لما عيني وقصب لكن حلي هراي مركا هيدين وقتي دقالك وقتي سيدا عمل ما يسني لما ديكرين لكن ميد بقول شيء حتى حلي كان ما حكوا صوب باقي سووا حتى مثلا هذا بدن وليه هاي نك هذا سيكي سال لو كعسين هاي نيو قيب كأها مركا هراي نيو ماشي كرنو سووا كسب باقي لكن سيدا دلوس عتين haddii aan dhaxgalno arrimaha hadda inta badan isku haysto aniga wax ma qaranayne ma waa ka shafeena waxa waayay in macnaha drisle ma aan dhahay CK markay xaaskiisa kala tageen rag kale oo shiina culay ay soo dhaweyn ay u sameeyeen dabcan halkaas dadku waxay leeyihiin ku xumeyn ay ugu sameeyeen CK ku xumeynayaan ay ugu talagaleen sax ma fahamtay si fiican marka kadib adi heshiiskii raggaas markay heshiiyeen oo gabadhaas ay soo dhaweeyeen bilo ka hor marka ay kala tageen ani sidaa bala socday Instagram-ka CK iyo Drisley follow isku ma ahayn rag is follow gareeya ma haysaneen horta Drisley cabdi isaga qof bili aadan ah waliis muusan follow gareey in laba account isaga leeyahay mooyaane inuu taas waa cusurnimo dhawaad adi 200,000 dad gaaro
yaa ku xiran taas cusurnimo haddii cusurnimo waa isaga jooskiisa waa asaga u falogarin leh ma sheegi karo sababaha uu saas u sameeyey laakiin wuxuu noqonayaa qofka ugu horreeyay abid intuu Instagram-ka u joogay qofku falogariyay qofka ugu horreeyay ayuu noqday CK oo falogariyay CK-na isagana waa u falogariyay arrintaas kaliya waxaa waa dadka in xogta sirta iyo waxaasi ka dambeeyey inkastoo isku xamanaya in ay saaxiibo hoose yihiin laakiin arrinta maanta caadi waa la kashifay maanta laakiin maxaa dhacday oo maanta rumowda ma garanaysaa makhaayadaan ka dhex qadina niyo horta CK maanta ku dhex fadhiya muxuu ahaa makhaayadda oo Dirisle maqaayadii CK-na waa uu soo dhex fadhiisan way soo dhex fadhiisan doonaa ayaga ma garan karno laakiin hadda waxa laga dhex hadlay waa middan maxaa wada Dirisle cadimo waxa middan laga hadlay laakiin muuqaalka hadda ay soo duween ragga in ay xiiso isku qoyin waxa ku garanaysaa waa hal saac iyo dhowr daqiiqo soo duween YouTube de intaas weligiis qof oo intuu iska soo fariisto hadlay 8 daqiiqo ma jiro yaaba 8 daqiiqo 10 daqiiqo oo wax laga jarjaray yay bahayd xaalada kale laakiin ragga adiga hadda maxaa kaaga muuqatay rag xiiseynayo mise rag marka horeba xiise gooni isku qabay waxaana iga muuqday horta raggan iyaga horta cadaawad oo ma taqaanay baaki kama dhaxayn sax wixii ka dhaxay wuxuu ahaa umar makhaayadaha aan shidano waxaad ku garan kartaa codadkooda ma taqaanay qaadan jirin wax ku biraas ma jirin baak ma sameyn jirin laakiin wax kale oo isku reeban jirin ma lahayn saas ay tahay haddana ayo makhaayadaha isku shidanayo yaa waraysi u bixiyay Dirisle yaa wuxuu ku yiri haddii maanta uu iga hor imaado CK socdo صح حاول تاجر وانا سلامي عدل وان هاد واسكو واكن على الجفيا ساس marka waxay ku tusaysaa marka in ay jirin cadaawad si dheer dadka ma taqaanay labada shacab ku cadaawad oo dhankan YouTube ka ah iyo waxa sii jirta adiga dadka shacabka ku xiran ya cadaawada iyada ma taqaanay isku qabo laakiin iyaga wax u sii weyn ma taqaanay ka muuse dhaxin horta waa run dadka taageero CK iyo Dirisle Cabdi iyagu baas dagaal waka raggan muuqaal bay soo geliyaan committee bay uga dhaxbaxaan dadka way dawada marka dadkii midna wuxuu la taagan yahay team CK midna wuxuu la taagan yahay team Dirisle صح midba waxa arkaysaa team Dirisle intuu isaga soo dhax qoro YouTube-kii CK intuu soo galo ya 100 rebel intii loo galo ya isagii macna jinsiyadiisii macna dadka dhan la caayay bas raggan kali qofka hadlayay ay waxa soo bandhigay dad macaynin wax ma sameeynin sax intuu ka soo hadlay oo qofka soo waxay soo galiyay way iyaga dadkan shacabka isku caynayna marka niyahow dadka shacabka taageero markay ay tahay dadka Soomaaliya taageerinimadu waxay tahay khaladka fahmay waa xadaf may taageerino macnaha taageerino may fahamsanin ba may taageerada laftiisa dad ku xad gudban oo wax ka dhigan way fogayaan sababtoo ah adigoo qofkan taageersan qofkan waxa uu qownayo inaad ku taageersaneen waa caadi صح laakiin qofkii inaad adigoo taageerinin balse haddana aad cayso jinsiyadiisa dadkiisa cayso iyo meeshuu ka soo jeedo yaa qaran Soomaaliyeed inta badan صح hadda dad fara badan oo Dirisle iyo CK in badan ka bariisan jiray oo macnaha maxaa la dhihi jiray YouTube-ka waa isku dhacay ku shidan jiray maqaayadaha maanta soo afjarmay horta ma sheegi karno rag kale oo hadda dhanka kale ka wadaan ayagana CK xaaskiisa in ay shiina xuleeyo waxa arkay xitaa dhahayo aniga xaas baan leeyahay iyo caruur baan leeyahay abidkeed ma dhici doonto in halkan iska daayo codkeeda xitaa hal second in iska sameeyo صح arrintaas kolley ma sheegi karo wuxuu soo qaaday gabadhan kalena hadda ay kala tageen soo dhaweyntii u sameeyeen waxa uu CK sameeyay in uu soo fariisto YouTube-keeda darteeda share out u sameeyay uu soo dhaweeyay YouTube okay waa ku karmaysan marka arrintan adii waxaan dhihi karnaa rag baa heshiiyey ma sheegi karno in heshiiskooda uu sii socon doono bal idinka bal qiyaas raggaas heshiiskooda mayuu sii socon doonaa mase markii bilooyin kadib isku dhici doonaa haddana waa isku laaban doonaa sidaan aqaanayba waan arki doonaa insha Allah daawadayaal waxaan intaas inoo dhan barnaamijkan kooban ee ku dul eegaynay heshiiskii qayn taariikhiga ay dhaxmaray CK iyo Dirisle Cabdi inta barnaamijkan kan ku kulmayno nabadgelyo